beesha jareer oo ka mid ah beelaha ugu tirada badan ee dega magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa maanta gilgilaya magaaladaasi kadib banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan kuwaasi oo ay uga soo horjeedaan falkii foosha xumaa ee xalay lagu dilay marxuum Axmed Odowa oo ka soo jeeda isla beeshaasi baldaawada ka waran haddii lagu dilo waad naga shaqo badan tahay iyo sababta la yaabka leh ee loo dilay marxuum Axmed Odowa ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa hase ahaatee inta aanan guda gelin muuqaalkan waxaynu si naxariis leh kaaga dalbanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliya si aynu ula midowno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale hana ilaawin inaad qaybta hoose ee commentiga inugula wadaagto aragtidaada waad ku mahadsan tahay daawade la jaanqaadkaaga marxuum Axmed Odowa oo in ka badan 8 sano ku noolaa magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayay xalay dileen rag degan degmadaasi waxayna dadku sheegeen in dilka marxuumkan uu sabab u ahaa shaqadiisa oo ahayd mid ay la dhacsanaayeen dadka deegaanka waxaana dilka geystay rag ay isku shaqo ahaayeen sida aynu ka soo xiganay qaar ka mid ah bulshaweynta ku nool magaaladaasi bulshaweynta ku nool magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaana saakay ilaa iyo maanta dhigaya banaanbaxyo waaweyn oo ay ku dalbanayaan inuu cadaalad helo Axmed Odowa oo xalay gurigiisa lagu dilay dadka dilka geystay ayaana adeegsanayay qori AK47 ah taasi oo sababtay in marxuumka ay nafta dhaafiyaan hadalhaynta ugu weyn ee Caabudwaaq ka taaganaya ah in qof muslim ah diinta islaamka ku adag loo dilo inuu ka shaqo badan yahay bulshada inteeda kale taasi oo markaasi Axmed Odowa uu la gaar ahaa maadaama uu ka shaqayn jiray dhismaha guriyaasha ragga dilka geystayna waxaa la sheegay in ay kala shaqayn jireen isla dhismaha guriyaasha ku yaala magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ilaa iyo dhamaadka muuqaalka haddii aad ina wehelisay mar kale daawada waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu saaxiibo fara badan u gaaro una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliya si aynu ula midowno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale una naxariis badan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan magacaygu waa Cabduqaadir Cabdulla